aniya kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan aniya kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aryaada maanta waa maalin Puntland maanta waa maalinteedii maanta madaxweynay doorteen maanta war Cabdulla waxaad ka tagtay maanta madaxweynadeeni maanta aryaama madaxweynaha la doortaa dayn lagu leeyahay shibowse qaata waa yaabe war yaaraheen ninku dayn ma qaadana waa dani waa maalqabeen warnimada maanta Puntland doorasho rasmi ah ka dhacday oo dhihi karno xor bay ahayd 22 musharaxa soo safatay madaxweyne u tartamaysay Puntland rag waaweyn oo magac iyo maamuus inay leeyihiin u haystay madaxweyne noqonayaan ayaa ayagoo yar hoolkii ka baxay ay yeesheen nin weyn oo Saciid Cabdullaahi Dani leeyahay ku soo baxay marka waxa la yiri dhaxalkeeda iyo magac iyo dhulkii kay u dhiibatay dhaartu u maray aan uga dhabayn ee dhagar ka gala dib bulaasima iyo ceebaan dhamaan war madaxweynaha cusub ee Puntland waa la dhaariyay nin war ma hayside ma ku wallahi baa la yiraahday waa igu wallahi buu yiri aryaadaha ama qooryo xere lagu dhaarshay walba xilahay talaaqan ama lagu dhaarshay ka rumaysa maayo warnimayo madaxweynaha hore Cabdiwali gaaskiya ku kacay maanta wareegi koowaad ayaa dadka lagu daray kadibna daawada iyo goobta ka ahaa laakiin waxaan soo xasuustay waagii uu la tartamay Faroole hal cod ku guulaysto Faroole uu guulaysto maanta ciyaartiisu wareegi koowaad soo dhaaf waay aniga nimayo waxa ila yaabadnaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha juxa oo iska dhigaya nin balaaye ah meesha wuxuu ka ahaa korayay gabalku dhac hal cod xataa meena hal cod baa ka xunnahay taas warshabiyo $1 milyan oo dollar ay ka baxday wareega koowaad oo ku haray warnimada doorashada Puntland 4 generaal baa ka qayb gashay midkii ugu dacda yaraa oo 40 sano jira inta yiri laga aqbali waay in la dhaariyo ay tagtay dadkuna ku xamanayeen uu 36 jiro ayaa madaxweynaha sigay oo wareegii labaad oo 4 cod kaliya looga guuleystay marka General Morgan oo hal cod helay iyo labadii kaloon la soo hadal qaadinba waa ka baxay meeshii waryaalaha dhageysta nilankan yarka ee General Libaax la yiraahdo waan ka shakisanayn inuu madaxweyne nagu noqdo Soomaaliland dagaal culus baabay soo qaadilaydo garawa ayay sanka soo saarilayd haduu kaas madaxweyne nagu noqon lahaa waya doorashada Puntland qur iyone halaalaha madisan latin tii koonfur galbeed hoog mahayna hoogaha laakiin walaago yagyag ba jireen oo heelad iyone dirqisada ka halasa warnimayo hadii doorashada koonfur galbeed xildhibaanadii codeeyay madkeero iyo mad isaaq iyo mad nuur u badnaayeen kuwa Puntland dhageysta xildhibaan Libaax waa codeeyay xildhibaan Doobo waa codeeyay xildhibaan Digsokeey waa codeeyay xildhibaan Bala Alla waa codeeyay xildhibaan Daad waa codeeyay xildhibaan Isbariijiye waa codeeyay xildhibaan Samatar waa codeeyay xildhibaan Indhakulul waa codeeyay xildhibaan Warsame waa codeeyay warniyo nimankan ka sheekeynaysa magacay khatar ay leeyihiin waaban ka shakiyay ama Soomaaliland ku soo duula war wafdigii ayaatan dawladda ka socdo garoonka cad ku xayirna markii Cabdiwali xilka laga dhigay isla markii diyaar raacin war ninka la doortay annagu ciduu hadda la socdo raacayo ma naqaan laakiin hadii la doortay talaado arbaca ku xigta marka arbaca inuusan ka fogeyn ayaa iska cad dib waxay ka noqotaba horta la hambaliye madaxweynihii hore Puntland Faroolana wuxuu yiri madaxweynaha cusub ee Puntland waa soo dhaweynayna war madaxweynaha Puntland isla saacadii la doortay ayuu amar soo saaray wuxuu leeyahay aqoonadu dhammaan waa xiran qof lacag ka bixin karana ma leh waaba haday ku jirtee Cabdiwali yuu wax la bixin miyuu ka wadaa ayaantaanina waa uu igaarna ilina ku tal ayaantaanina waa uu igaarna ilina ku tal haye war madaxweyne ku-xigeenka Puntland qowdan iyo garaasha ku tartamay garaashana ku guuleystay now war qowdan kama tartamin Puntland
been ha sheegin anugu waxaan idin leeyahay mu'aamarad nin meermeeriye bele maleegaaba ma jaxaabo duul kale wuxuu ku maqnaadaaba waa lagama maarmaan inay maalin dabartaaye meeqaa mid nabaddiidyadii madar ku ceeboobay war adeero maaha sidaase waa nin barwaaqa heesaba mar bay bele ku ciirtaa doorashada Puntland xuquuqda dumarka waa lagu xadgudbay baarlamaanka dhan wax dooranayay hal gabadh baa ku jirtay musharaxiintana hal gabar kuma jirin baayo waan fasaxnay tukarraq shicibkiina waa isdhex maraya aryaadhaha maahmaahyo cusub oo Soomaaliyeed haddaan soo baxda waxayna tahay ma taqaanin madaxweynihii mug la doorto mug lama doorto arrisaas mahmaahayda ku dheelin nima duugtay iyo nima doorataba dib looma arko lama god la daati maamaha ku dheelatihiin tayani waasidaha makasaysin aku bisato no toonasta ninay doorato mar labaad inay soo dooran waa ku saxanta marninkii xil u qaatay haddii ay la macaato ma iska soo malabsaa isagu ma isashoonin warnimayo cabdiraxmaan cabdishakuur hotel xisbigiisu ku shiri rabay ayaa laga joojiyey kadibna bannaanku inta soo istaagay uu layf soo galay laamiga dhexdiisa wuxuuna yidhi waa anigaa bannaanka taagana ciidanku hay dilaan buu yidhi wax kale iima harine anigoo ku hadlaya magacayga kan madaxweynaha iyo kan jamhuuriyaddaba shacabka iyo mas-uuliyiinta puntland waxaan ka codsanayaa inay madaxweynaha cusub la shaqeeyaan nabad iyo nolol war madaxweynahaygii jumhuuriyadda somalilan wuxuu yidhi haddaan la dooran jenaraal asad diyaano waan u hambalyaynaya madaxweynaha cusub ee puntland war faynalkii doorashada puntland deni iyo diyaana isku soo haray deniyaana adkaaday faynalka maamul goboleedina waxaa isku soo haray sheekh axmed duxul iyo ugaas xaaf war dumarku diyaanay la jireen boowe waana laga adkaaday baayo caddaanta waa u dhashee diyaano ma marsan annagu haddaannu kala maannahay madaxweynaha cusub waannu soo dhowaynaynaa waxaannu leennahay hambalyo aanlangaas edjaymi indhahan ma hadhowayna waryaa maadaanna mateli kara naga taga odeesahaydin cunteen